midowga musharaxiinta beesha yaxar musharaxiinta beesha yaxar midowga musharaxiinta beesha yaxar midowga musharaxiinta beesha yaxar anigoo ah fartuun maxamed maxamuud ahna musharax u taagan labada kursi ee beesha yaxar mid kamid ah waxaan halkan ku cadeynayaa in ayna cidna nagula tartami karin aan yaxar sheeganin annagoo yaxar ayaa kursigeena u taagan bismillaahi raxmaani raxiim anigoo kamid ahay baarlamaankii tobanaad ee federaalka Soomaaliya haddana u taagan inaan u tartamo baarlamaanka 11aad kuraasta beesha yaxar ahna anigoo ah maxamuud maxamed jimcaale oo la yaqaano una taagan inaan u tartamo kuraasta beesha yaxar oo ay ugu tartami doonaan dad u dhasheen beesha yaxar oo aan ku kalsoonahay inaan wixii iga soo baxane aan raalli aan ku ahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aadaan ugu faraxsanahay maanta inaan annagoo wada ah beesha yaxar inaan u taaganahay inaan uga tartano kuraasta labada kursi mid ka mid ah bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ugu xaashi odwaynaha una taagan musharax beesha yaxar labada kursi mid ka mid ah ahaana wasiirka haweenkii shaqadii shaqaalihii hore Hirshabeelle kursigan waxaa ku tartami karo nin aan yaxar ahayn kuma tartami karo duu ilaahay yiraahdo waxaana yaxar dhashay anigoo ah fanka axmed jimcaale musharax u taagan labada kursi beesha yaxareed mid ka mid ah oona yaxar aniga ah midowga musharaxiinta beesha yaxar musharaxiinta beesha yaxar midowga musharaxiinta beesha yaxar midowga musharaxiinta beesha yaxar bismillaahi raxmaani raxiim waxaa halkan jooga 5 xubnood annagoo ah fanka fartuun ubax iyo xildhibaanka hadda kursiga ku fadhiya saysay ubax waa wasiir ku-xigeenkii hore ee shaqada iyo shaqaalaha dowladda Hirshabeelle sida aan dhammaanteen ka warqabno shanteenna waxaa jira 2 murashax oo kale oo beesha yaxar ka soo jeeda oo ayagana u tartamaya labada kursi nagulana jira midowga maanta aan ku dhawaaqayno ee musharaxiinta beesha yaxar ee u tartami doonta haddii allaha awoodda la ogolaado labada kursi Hirshabeelle waxaa ku sugan suldaanka guud ee beesha yaxar suldaan axmed maxamuud cosoble oo ah suldaankii soo xulay labada baarlamaan ee Hirshabeelle ergadii dhismaha dowladda Hirshabeelle iyo xildhibaanada kuraasta hadda noogu fadhiya baarlamaankii hore baarlamaankan oo ay goobjoog ka tahay wasiir ku-xigeenkeenii hore ubax xaashim odawaay naxar sidaas daraaddeed waxay leedahay beesha nabadoonno iyo cuqaal odayaal dhaqan guud oo horey u soo xulay xildhibaan saysay iyo aniga kuraasteenna dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada waxay saxiixeen heshiiskaas laga soo bilaabo 17 September cid aan ahayn oo habraac iyo ayaa ku qoran waxaana loo sameeyay guddiyo heer dowlad goboleed iyo heer federaal siid iyo fiid waxaana lagu wada dhaqmayaa dowladda dhexe dowlad goboleedyada guddiyadaas iyo kan khilaafaadka oo saddexdaas guddi waxaa lagu wada dhaqmayaa habraacyadaas qoran cidna kuma faragelin karto dhaqanka beel kasta kuraastana waxaa ku cad jifada kursiga iska leh beesha shanaadaan nahay 14 qabiilaan nahay waxaan ka sii nahay yaxar cid aan yaxar ahayn nagulama tartami karto 7daas xubnood oo kursiga koobaad oo beeshoon anigu ku fadhiyo
ay igula tartami doonaan 3 ka mid ah midowgan musharaxiinta 4 kursi oo u taagan kursiga koobaad iyo kursiga labaad oo ku fadhiyo xildhibaan Saysay ay kula tartami doonaan 3 xubnood oo xubnahan ay ka fadhiyaan iyo 2 gabdhood oo gabarna bari ay soo gali doonto Jowhar gabarna ay maanta ku maqan tahay gabadheedo fool ah 7daas xubnood aan ku tartamaynaa waxaanan ku midownay in aan kuraasta cid aan yaxar ahayn u tartamin odayaasheedii dhaqanka waa joogaan ergooyinkii wax dooran lahaa oo ay odayaashaas soo qori doonaanna waa joogaan waa u sinaanaynaa tartanku waa furan yahay maanta intaas waaye ha la raaco habraacan leenahay ha lagu dhaqmo habraaca ha la raaco habraaca alla raaca habraaca lagu dhaqmo habraaca